reer mudug baan nahay annagu dhanka waqooyiyan degnaa reer Puntland baan nahay koonfurna waxaa degan reer galmudugow gobolka mudug bad buu leeyahay waa aeroboortu leeyahay meel istiraatiiji ku yaala oo dawladaha dariskeenna la ama xuduudada la leena aan u tashano oo ka tashano dawladda federaalka iyo dawladda galmudug aad ku jidhaan oo idinku aad dhisteen iyo mid aan dhisanayo Puntland labadaba aan ka tashano aan u tashano mudug Soomaalinimo horumar nabadgelyo gobolkeena ma aha in Garowe iyo Dhuusamareeb iyo Muqdisho mar la isku keen dhufto mar la isku keen diro waxaan inii rajaynayaa inaan talada isla heli doono dadkii dawladda galmudug idinka dhisay oo abaabulay magaceedii ugu horeeyay idinka keenay Puntland anaga dhisnay midda federaalkana waa wada dhisnay intiina dadka ugu nafacliitaan nahay maanta waxaan rajaynayaa inaanu isfahanno siyaasadana isku fahanno deegaankana isku fahanno horumarkana ka tashano ma nacbeen 18 gobol iyo Soomaaliya oo dhan baa wax yar ah waxaanu rabnaa qof kasta oo Soomaaliya deegaankiisa inuu ku xisaabtamo horumarkiisana kala taliyo dawladana aan qabyaalad lagu raacin cadaalad darrana lagu raacin caloosho shaqaystanimana lagu raacin intaasaan leeyahay Puntland baana mucaarad ku ahayn galmudug baana mucaarad ku ahayn federaalkii la dhisay baana mucaarad ka ahayn ee waxaan ka hadlayaa dadka madaxda noo ah oo Soomaaliga ah waxa ay qabteen iyo say Soomaaliya u wadaan danta reer mudug baana ka hadlayaa waxaanu dhisanay deked waxa dhistay dad shacab ah waxaanu hadda dhisanaynaa aeroboorro waxaanu dhisanaynaa wado inta anagoo dhisnay inaan waxba loo qabano dawladdiina nagu garab istaagi weydo noo qareemi weydo xaq uma leeyahay waxaanu haynaa xogo badan oo aan hadda media ka gudbinayn ama heer Puntland ama heer federaal xasan wuxuu ballan qaaday inuu wadada Turdibi iyo Garaac dhisayo goortu xamar ka deguna ka noqdo wuxuu ballan qaaday inuu shirka Garowe gobasha la dhigay imaanayo xamar goortu ka diroon ka noqdo waxaas oo dhan Soomaaliya waa kugu arkaysaa ka waantow aan kuleen daniyow Puntland cadaalad u noqon haddaad u noqon weydii annaga reer muduga ama koonfuraan degni ama waqooyiyan degni waa ka tashanaynaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka maamul iskayaan ku dhawaaqi doonaa haddii aanu maaha mucaarad iyo gooni ugoos waxyagu waa xisaabtan dhab ah waan ka noqosho lahayn dadka reer mudugana inay hadalkayga igu taageeri doonaan baan u malaynaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.